topic mowduuc about ku saabsan water biyaha. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا صاحب يال halkani waa kulmiye private school waxaan ahay Umar Maxamed Ali iyo sidoo kale waxaad igala socotaan kulmiye private school haddii tahay waqtigeedii koowaad ee halkan aad igu soo boqoto waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto si aad u hesho casharo waliba oo aan soo gelino halkani kulmiye private school. casharkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa haddii ay qadaro mowduuc aad u xiiso badan kaasoo ku saabsan biyaha. Topic about water waa mowduuc ku saabsan biyaha kaasi oo markaasi aan halkan aan ku faahfaahin doono waliba si fiican aan idinku sharxi doono. haddaba intaan u guda gelin casharkayga waxaan kugu baaqayaa inaad hal mar aad taabato calaamadda subscribe si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalkeena. haddaba haddii aad tahay qof meel dheer nala jecel inaan gaarno muuqaalka like sar muuqaalka in like sarto waxaa ka qayb qaadanaysaa inuu muuqaalka uu markaasi meel dheer u gaaro sidoo kale YouTube keenana uu meel dheer u gaaro. saaxiib nagala qayb qaado inaad inta sameeysoba kuna soo dhawaada bilowga casharkeena maanta. Topic mowduuc about ku saabsan water biyaha. Dear listeners wuxuu ka bilaabayaa sida tan wuxuu leeyahay marka isaga dear listeners dhageystayaasha qaaliga ah. Dear listeners dhageystayaasha qaaliga ah. Dear listeners waxaa loo yaqaanaa kuwa ku dhageysanaya. Diyana waa qaali. Dear listeners dhageystayaasha qaaliga ah. White midka cadaanka ah ama midka cad and black iyo midka madowga ahba. White kan cadaanka ah ee halkan jooga and black iyo kan madowga ah ee halkan fadhiyaba. I am very happy waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay to appear here inaan halkan aan ka soo muuqdo again mar kale. I am very happy waxaan aad ugu faraxsanahay to appear inaan ka soo muuqdo here halkani again mar kale. And I am sending here waxaan halkan ka dirayaa. I am sending here waxaan halkan ka dirayaa a warm greeting salaan diiran to my dear listeners to oo aan u dirayaa salaantaasi my dear listeners dhageystayaasheeda qaaliga ah ayaan u dirayaa. Who allowed me kuwaasoo ii ogolaaday. Who allowed me kuwaasoo ii ogolaaday to talk about inaan ka hadlo this topic mowduucaani. So sidaa darteed I hope waxaan rajaynayaa you will listen to me inaad ii dhageysan doontaan. You will listen to me inaad ii dhageysan doontaan very well si aad u fiican. Water biyuhu is the backbone waa laf dhabarta of life ee nolosha. Water biyuhu is the backbone waa laf dhabarta of life ee nolosha ay ku tiirsan tahayba. People dadka, animals xayawaanada, and plants iyo dhirta cannot live ma noolaan karaan without water biyo la'aan. Allah stated ilaahayna wuxuu ku sheegay in the Qur'aanka life nolosha comes from waxay ka timid ama waxay ka ahaatay water biyo ayay ka ahaatay. There are waxaa jira several sources ilo fara badan. There are waxaa jira several sources ilo fara badan of water oo biyo laga helayo. In our country wadankeena we mainly rely on waxaan inta badan ku tiirsannahay the resources khayraadka such as sida waxaa ka mid ah bonds oo ah meelaha biyaha laga helo oo loo yaqaano bonds. baliyada we mainly rely on waxaan inta badan ku tiirsannahay the resources khayraadka such as sida bonds and baliyada, rivers webiyada and underground water
underground water iyo biyaha dhulka hoostooda ah most of inta badan our rivers wabiyadeena are seasonal waa kuwa xilli ah seasonal waa kuwa xilli ah this means tani waxay tahay that sometimes in mararka qaarkood of the year ee sanadka ka mid ah they are dry inay yihiin kuwa qalalan they are dry inay qalalan yihiin there are waxaa jira two big rivers laba wabi oo waaweyn ayaa jirta which flow from kuwaasi oo ka soo burqado ka yimaado the Ethiopian highlands okay the Ethiopian highlands buuraleyda Ethiopia these are kuwaasi waxay kala yihiin these are kuwaanina waxay kala yihiin wabiyadaasi the rivers wabiyada of Juba and Shabelle Juba iyo Shabelle rain roobka also sidoo kale isaguna provides wuxuu bixiyaa oo una siiyaa roobka a little water biyo yar ayuuna siiyaa roobka okay however si kasta ha noqotee in many parts of our country meelo fara badan oo ka mid ah wadankeena water biyuhu is scarce waa ay ku yar yihiin water biyuhu is scarce waa ay ku yar yihiin the nomads reer guuraagu need waxay u baahan yihiin water biyo and cannot live mana aysan noolaan karaan without it biyo la'aantiis they move from waxay ka soo guuraan dadkaasi ee reer guuraaga they move from waxay ka soo guuraan oo ka soo dhaqaaqaan place meel bay ka soo guuraan to place meel ay u guuraan in search of water iyagoo raadinaya biyo in the dry seasons xilliyada qaleelka ah they migrate waxay u hijroodaan to the coastal plain macnaha hijro waxa la yiraahdaa in meel laga tago meel la aado they migrate waxay ka baxaan oo u baxaan to the coastal plain banaanka xeebta ayay u aadaan where halkaasoo fresh water biyaha nadiifka ah can be found laga heli karo about wax ku dhow 1.5 meters hal iyo bar mitir under the ground dhulka hoostiisa laga helayo each clan qabiil kastana has wuxuu leeyahay a traditional migration pattern qaab guur oo soo jireen ah macnaha in meel laga dhaqaaqo oo laga baxo qabiil kasta ayuu u lahaa qaab qaas ayuu u guuro ayuu lahaa and they will go waxayna aadayeen to particular places meelo gaar ah ay aadayaan to dig si uu qotaan their shallow wells ceelal gacmeedyadooda waxaa loo yaqaanaa shallow wells ceelasha kuwa gacmaha la iskaga qoto laakiin aan si meel dheer aan ahayn oo kaliya qofka waxa weeyaan inta uu meesha degan yahay uu ku meel gaar ahaan u qoto shallow wells ceelal gacmeedyadooda si u qotaan in my conclusion gabagabadeydana I am saying to you waxaan idin leeyahay sorry waan ka xumahay to be prolonged inaan ku dheeraaday hiya halkan soo saadarteed thanks for your patience waad ku mahadsantihiin dulqaadkiina and for your listening iyo dhageysigiinaba halkaasaan ku soo meelay saaxiibayaal waxaan rajaynayaa topiga in la fahmay markaasi sidoo kale kanaalkana aad saari doonto waxa la yiraahdo like-ta si aan u soo badiyo casharada fadlan igu taageer inaad adiguna ku soo biirto kanaalka like-na saarto waa ku mahadsantiin